kulan ay isugu yimaadeen matalayaal ka socday inta badan beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xildhibaano federaal ah gudoomiyihii hore ee gobolka iyo qaybaha bulshada ayaana kulanka goobjoog ahaa inta uu kulanka socday waxa hogaamiyaha golaha dhexe ee maamulka madax bannaan Hirshabelle loogu doortay Cali Jeyti Cismaan waxa sidoo kale ku xigeen looga dhigay Axmed Cismaan Cabdulle odayaasha ugu horeen goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay taageersan yihiin maamulka maanta lagu dhawaaqay anigu ku hadlay magaca Hirshabelle lixda Hirshabelle oo gobolka Hiiraan degta anigu ku hadlay magacooda aniga maanta ma gartaa waxa la yiri ninkii adiga cad u gaadee ninkii kula dilay waa la dilay leeyahay Hirshabelle in la dilo la rifo aniga raali ah ka raali baan ka ahay Hirshabelle aniga isbisiin hata kuma Hirshabelle hadaan isbisiin maanta waxaan rajaynayaa insha Allah taala istaagkeena magaalada kumeelgaarka maamulka Cali Jeyti waxaan rajaynayaa anaha inuu Hirshabelle gaar ahaan il gooni inuu ku fiiriyo dad iyo dal iyo waxa u baahan inuu ku garab taaganay madaxweynaha sigoo ah hadda madaxweynaha state-ka sigoo ah waxa way mudnaan iyo garasho asiga xaqiisa ka timid maaha laakiin inta wuxuu ka sameystay oo madaxweynenimada loogu dhaweeyay Soomaa madaxweynaha marka asigoo marka gudoomiyihii gobolka Hiiraan ayuu wuxuu soo dilay saad u ogtihiinba odagii shabaab uu soo dilay dadna habari oday u ahaa xawaalana sidaas ayuu u garab socday hadda waxa nool marka habartiya nool waxaynu ku dambaysaa dhinaca koonfurta xigto qoraxsinkii ku dambaysaa asigoo madaxweynaha maxaad filaysan marka inuu habarta soo dilina waa rabnaa sidina waa u garab soconaa waxaan diyaar u nahay oo hiiliyahooda u garab taaganahay oo xuquuqdayadii hore iyo tii dambeba ku weynay haddana aanu raadinaynaa waa Hiiraan State nin diiday iyo nin doona nin ka naxaya nin ku farxaba beel ahaan gobol ahaan bulsho ahaan caruuro iyo ciroolaba hiiliyahooda la garab taaganahay wax badan ay Hiiraan State ugu dhawaaqay laakiin maanta waxaan filayaa inay tahay maalintii ugu dambeysay oo aan hadalkiisu u noqonin wax la soo hadal qaado waxaan ku soo dhaweynaa madaxweynaha iyo haddii la ku idmahayo calanka hadda la dhisay kor Allah u dhigaan leeyahay waan qaadaynaa leeyahay Cali Jeyti meel looga gabado ma hayna hadda saaca la taagaya meel looga gabado ma hayo nabadoon Cabdiwaaxid oo kamid ah xubnaha joogtada ah ee maamulkan cusub ayaa warbaahinta u akhriyay war murtiyeed ay hoggaanka soo saareen waxa la isla gartay in la dhiso dawlad goboleed Hiiraan State dhismaha kadib waxa ay doorteen golaha ayaa doortay si gacan taag ah ku doortay waxayna doorteen gacan taaga ah lagu doortay in madaxweyne ku meel gaar ah noqdo mudane Cali Jeyti Cismaan waxa sidoo kale ku meel gaar ah si gacantaagaas loogu doortay ku xigeen inuu noqdo mudane Axmed Cismaan Cabdulle Cali Jeyti Cismaan oo kulanka soo xiray ayaa sheegay inuu isku keenayo dhammaan beelaha dega gobolka Hiiraan dagaalka al-shabaabna uu sii wadi doono waxaan diyaar u nahay inaan xisaabtano waxaan diyaar u nahay kuwa lagu xisaabtamo anagu inaan noqon waxaan diyaar u nahay inaan hogaamin la nimaado haddii Ilaahay idmo waxaan isku dayaa inaan hogaamin la yimaado inaan idinka hoos bixiyo daladaha qaarkood ee idin bahdilay inaan idinka hoos bixiyo nafteena baxar u dhignay wiilal badanna waa god ugu jiraan
mahadsantihiin waxaan rabaa halkan waxa ka maqan reer Soomaaliyeed oo gobolkan degan oo hadda ay sheegay sidii ninkii odaga ahaa ee nabadoonka iga horeeyay uu sheegay waxaan rabaa dadka inaan doono inaan la fariisano inaan u yeerno inaan wax wada dhisano haddii Allah idmana ciidamadii safka hore ama frontline state halkan ay tuban yihiin ka soo tusaale dawladda hadda Itoobiya ciidamadeeda xuduudda joogaan waana howlgalayaa annaguna doorkeena la imaanayna haddii Allah idmo Maxamed Ibrahim Ahmed telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Beledweyne